Kursada badan saaxiibayaal waa markale Soomaaliyeed maantana cashka in la wadaagayno wuxuu ku saabsan yahay endocrine system oo ah habdhis ka mid ah habdhisyada jidhkeenu leeyahay. Sawirkani wuxuu inoo muujinayaa endocrine systemka ama xubnaha endocrine systemka ka kooban yihiin iyo halka ay jidhka uga yaalaan. Waxaan arkaynaa tusaale ahaan waan ka hadli doonaa waxa endocrine systemku ay yihiin iyo iyaga cudurrada ku dhaca iyo waxa looga jeedo shaqada ay jidhka ka hayaan iyo waxaas oo dhan waan ka hadli doonaa. Laakiin si guud waa 7 qanjidh oo laba maskaxda ku taalo waxayna kala yihiin hypothalamus iyo pituitary. Yacni endocrine systemku waa qanjiro isku tegay oo shaqo wada guta sidaa awgeedna ay magac wadaag u yihiin ay hal magac wada leeyihiin. Marka laba ka mid waxay ku taallaa maskaxda waa hypothalamus iyo pituitary gland. Qanjirka dhuunta ayaa weheliya oo qanjirka saddexaad ah. Thymus ayaa ku xiga oo qanjirka afraad ah. Kili ku yaalada ayaa ku xiga oo iyaguna kiliyaha dushooda ku yaal oo la yiraahdo adrenal glands. Ganaca ayaa ku xiga oo la yiraahdo pancreas. Haddii marka qofku dumar yahay waxa uu weheliya ugxan-sidayaasha. haddii uu nin yahayna waxa uu weheliya xiniyaha. Marka si casharkeenu u noqdo cashar nuxur leh isla markaana waqti badan aanu inooga qaadan waxay yani casharkeenu wuxuu ku dul wareegi doonaa su-aalahan shanta ah ee kala ah yacni bal inaynu ka jawaabno waxa endocrine systemku yahay. Waxaan ka jawaabi doonaa su-aasha ah imise qanjir ayuu endocrine systemku ka kooban yahay. Sidoo kale waxaan isweydiin doonaa waa maxay shaqada uu endocrine systemku jirka ka hayo oo iyadan aan faahfaahin doono. Waxaan sidoo kale sharaxi doonaa ama qeexi doonaa waxa hormoon looga jeedo maadaama erayga hormoon yani uu inagu soo noqon doono intaan casharka ku jirno sidaa awgeed isagana waan qeexi doonaa. Waxaan kaloo wax ka oran doonaa ama ka sheegi doonaa cudurrada ku dhaca endocrine systemka aad ay u fara badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan ama ugu waaweyn oo caanka ah ayaan iyagana wax ka tilmaami doonaa. Waa maxay endocrine system? Endocrine systemku waa qanjiro ama xubno ka mid ah jidhka oo shaqadoodu tahay inay sameeyaan ama soo saaraan hormoono isla markaana hormoonada si toos ah ay ugu sii daayaan dhiigga si uu dhiiggu u gaarsiiyo xubinta loogu talagalay si markaa xubintaasina ay u gudato shaqadii ay jirka ka haysay. Yani halkaa waxaa ka arkaysaa endocrine systemka dhan lagu sheegay inuu yahay qanjiro hawl wadaag ah. yacni waa dan wadaag yani hal shaqay ka qabtaan jirka shaqada maadaama ay ku midaysan yihiin oo midba midka kale ku xidhan yahay yacni waxaa la isku yidhaahdaa endocrine system hal system baa lagu magacaabo jirkeenu systemyo badan buu kala leeyahay yani ilaa 11 system oo kala duwan. Waxaa ka mid ah systemka dheef mareenka, waxaa ka mid ah systemka neef mareenka, waxaa ka mid ah systemka dhiigga iyo yani dhiig mareenka, waxaa ka mid ah systemka difaaca jirka, waxaa ka mid ah systemka dareen wadayaasha ama nervous systemka. waxa yani aad bay u fara badan yihiin. Marka ama si kala hadii loo dhigo 11 baa lagu soo koobaa marka qaar 12 baa dhigaysay laakiin ilaa 11 system oo caadiya ayaa anatomically ama anatomy ahaan loo qaybiyaa systemyada kala duwan ee jirka. System marka laga hadlayna waxa weeyaan ama nidaam ama habdhis jireed marka laga hadlayo waxa weeyaan waa xubno isu tegay oo shaqo wadaag ah yani oo jirka ka mid ah. Endocrine systemku marka wuxuu shaqo ahaan aad ugu dhow yahay kan dareen wadayaasha. Yani dareen wadayaashu waa habdhis kale oo jirku leeyahay oo yani fariimo isweydaarsada yani fariimay isweydaarsadaan marka ay yani mataqaanaa doonayaan inay shaqo jirka ka qabtaan. Kana waa sidoo kale fariimo isweydaarsaa. Fariimaha marka kan isweydaarsado yani endocrine systemku waxa weeyaan waa hormoonadu isticmaala yani emailadu isticmaalayo u dirdirayo waa ay isu dirayaan ama ay iskula xiriirayaan waa fariimaha la yiraahdo hormoonada. Halka nervous systemku iyagu fariimahooda waxay mariyaan waxa la yiraahdaa neurotransmitter. Neurotransmitters waa fariinsidayaal iyaguna laakiin aad bay uga dhaqso badan yihiin runtii kan endocrine-ka. Hormoonka yani wuxuu qaadan karaa daqiiqado, wuxuu qaadan karaa saacado, mararka qaarkood maalmo qaataa marka hormoonka laga hadlayo. Hormoonadu way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay shaqada ay hayaan.
oo dee hormoonka hadda tusaale ahaan koritaanka oo kale markaa koraysa growth hormone baa la yidhahdaa yani iskama sii daayo haddii la iska sii daayo qofku iska weynaanaya waa arda qof markuu korayo anagu ma dareeno waxaa laga yaabaa sanada in nagu qaato inaan fahanno qofku inuu dheeraaday ama bilo ama waxyaala noocaasa sababta keenaysana waxa weeyaan in hormoonkaas uu qiyaas yani xaddi cajiib le yani si qaab aad u yani mataqaanaa يعني slow motion يعني aad u hooseeyo ayuu u socdaa yani xawaarihiisu aad buu u hooseeyaa waana sababta keenaysa in aynan u garan ama u arkin qofkii oo dee xalay isagoo gaabnaa inuu maanta dheeraaday oo kale tusaale ahaan marka endocrine systemku waa nidaamka aan ka sheekaynay ee ka agdhow nervous systemka isagii nervous system waxay kala duwan yihiin baan niri midna wuxuu isticmaalaa neurotransmitters markuu fariimaha isweydaasanayo endocrine system waa nervous systemka endocrine systemka wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo hormones ama hormoono imisa qanjid ayuu endocrine systemku ka kooban yahay endocrine systemku wuxuu ka kooban yahay 7 qanjid oo runtii kala duwan yani kuwaasoo sameeya maadooyin biology ah oo loo yaqaan hormoono yani waxaan horey usoo sharaxnay waan isleeyahay hormoonada qanjiradan 7 ay ka kooban yahay haddaan mar kale dul maro waa laba maskaxda ku yaala waxa laga yaabaa in qofku isweydiiyo maxaa maskaxda 3 qanjir baa ka muuqda pineal gland hypothalamus and pituitary gland marka muxuu laba u leeyahay yani markuu ka hadlayo waxaan laba u leeyahay marka endocrine systemka laga hadlayo yani waa qanjiro kooban yani jirkeenu qanjirada endocrineka uu leeyahay yani aad bay u fara badan yihiin laakiin magac wadaagta inta halka magac ee endocrine system la yiraahdo wadaagta waa 7dan marka 7dan marka qaarkood pineal gland waa lagu daraa laakiin ma yani sida saxda kamid ma aha waa endocrine gland isagu laakiin endocrine systemka kamid ma aha pineal gland ayaa yani ayaan ka saarnaa markaan casharkan sharaxnay yani maadaama aan lagu soo darin inta badan waana ku arkaysan jaamacadaha iyo iskuulaadka markaa dhiganaysaan yani inaanay kusoo qaadanayn yani pineal gland marka waxa weeyaan waa laba maskaxda ku yaal oo kala ah hypothalamus iyo pituitary gland ama qanjirka pituitary iyo qanjirka hypothalamus labada qanjir maskaxda ku yaalaan ganac ayaa ku xiga oo kan saddexaad ah thymus oo qanjirka laabta ah kalikuyaalada ama adrenal glands qanjirka dhuunta marka haddii yani qofka jinsigiisu yahay dumarna waxa uu heliya ugaxansidayaasha oo yani ka laalaada yani hareeraha ilmagalaanka ama riximka ama rimayga iyo xiniinyaha oo iyaguna mataqaana hadduu qofku nin yahay tusaale ahaan yani u weheliya kamid ah yani endocrine glandska ama qanjirada endocrineka marka sidaan sheegnay waa 1 2 3 4 5 6 7 hadduu dumar yahayna waa 5tan kore 6 7 yani labadan 4 labadan waa 6 iyo kan haddaad dumar tahay haddaad rag tahayna kan waa maxay shaqada uu endocrineku ka hayo jidhka shaqo aad u fara badan buu runtii ka hayaa jidhka endocrine systemku waa nidaam aad u cajiib ah oo yani xakameeya shaqooyin aad u fara badan oo jidhkeena ka dhaca waa anaga hadda kasoo hadlaynay tusaale ahaan koritaanka oo kale waxaa xakameeya ama maxaa la yidhahdaa haga oo qofka koritaankiisa iyo xilligu koray yani koritaanku siduu u korayo iyo intuu dhar la ekaanayo iyo intuu ballac la ekaanayo iyo waxaasoo dhan koritaanka qofka aadanaha waxa yani go'aamiya ama hanaanka loo isticmaalo inay shaqada gutaan ee jirku shaqada yani jirka shaqada ka haya waa endocrine systemka marka aad bay u fara badan tahay shaqada uu jirka ka haya laakiin waxaan soo qaadanaynaa bal kuwa ugu muhiimsan yani shaqooyinka ugu muhiimsan ee jirka waxaa kamid ah koritaanka waxaa kamid ah qaangaarnimada yani qofku goormuu qaangaaraya markuu qaangaaro muxuu isku arkaya yani waxaas dhan waxaa hagaya ama xakameynaya waa endocrine systemka ama waa qanjirada shaqo wadaagta ay isu tegeen waxaa kamid ah taranka iyo dareenka galmada tusaale ahaan oo qofku dee haddii endocrine systemkiisu aanay shaqaynayn khaasatan yani tusaale ahaan haddii shaqadii taranku ay hoos u dhacdo ciladu inta badan waxay ka jirtaa endocrine systemka ama dhaawac soo gaaray ha ahaado qanjiro kamid ah ama ha ahaato yani wax qofku ku dhashay ama ha ahaato wax dhaawac physically aan soo gaarin laakiin xanuuno kaloo jira sabab ha u ahaato laakiin
haddii shaqadoodu yaraato waxaa yaraan kara tarankaaga, waxaa yaraan kara dareenkaaga galmada, waxaa yaraan kara qaangaarnimadaada inaadan horey u qaangaarin, ama haddaad doontid horey u qaangaartid xilli aan dadku qaangaari jirin. waxaa laga yaaba inaad iska kortid yani mataqaana, ama wax laga inaad kori kari weydidba. waxaa laga yaaba hurdadaadoo kale khalkhal inuu ku dhaco, ama iska seexatid maanta dhan ama iska soo jeedid. waxaa laga yaaba haddii yani mataqaana khalkhal ku yimaado inaad iska dhereegsanaatid adigoo ay ahayd inaad gaajoodsid wax enerjiga badan uusan jirkaaga ku jirin. waxaa laga yaabaa in gaajadu yani iska gaajoogto adigoo laga yaaba wax kuntay. waxaa laga yaabaa yani ka falcelinta musiibooyinka ama dhacdooyinka cadiga jirkaaga inaadan ka falcelin karin sidii yani munaasabka inaad uga falcelin karin maadaama khalkhal ku jiro. yani waxa laga yaabaa wax dadku ka cabsadaan inaad adigu ka cabsan, ama wax dadku yani ay u arkaan khatar inaad adigu khatar u arag ama halis. waxyaale waxaa laga yaabaa dadku halis u ark yani ay u arkayaan wax caadiyana inaad adigu u arag ama ka cabsato ama si kale uga falceliso. marka waxaas oo dhan, shaqooyinkaas oo dhan oo runtii aad dareenka la xiriira waxa haga ama xakameeya ama kala maamulaya oo nidaaminaya waxa weeyaan endocrine systemka. marka waa qanjiro yani shaqo wadaagaasaan sheegnay, oo haddii yani mataqaana ay xanuunadaasi soo gaaraan yani qofka uu khalkhal badan ku dhici karo. hormoon maxaa looga jeedaa? wax yar baan ka iri baan malinaya waxa hormoon looga jeedo, oo waa fariin sida saxda ah, waa fariimo jirku soo wadaagsan. laakiin hormoonku waa fariin kiimika ah ama maado ay xubnaha jidhkeennu iskula xidhiidhaan. yani waa maxay? waa fariin kiimika ah ama maado ay xubnaha jidhkeennu sameeyo, isla markaana uu u sameeyo dee in siday isula xidhiir lahaayeen si ay ugu sahasho xidhiidhkooda. si kale haddaan u dhigo waa imailada ay xubnaha kala duwan ee jidhkeennu isweydaarsadaan. marka habdhiska endocrineka la joogo, hormoonadaas waxay ku safraan qulqulka dhiigga, waana sababta endocrine loo dhahayo. waxaa jira kuwa la yihahdo exocrine oo aan yani ayagu waxay isticmaalaan tuubooyin gaar ah oo aan kuwa dhiigga ahayn. laakiin mar kastoo endocrine laga hadlayo yani hormoonka ay sameeyaan ama fariimahooda waxay si toos ugu sii daayaan qulqulka dhiigga, yani dhiigga toos ugu daran. yani uma baahna ayagu inay qasabada gaar isticmaalaan ama waxa. waa sida tusaale ahaan internet wireless markaa haysatid iyo mid xadhigle markaa haysatid way kala duwan yihiin. midna xadhigii waa inaad ku qabatid computerkii waa inaad gelisid oo waa kaas yani xariga la'aantii internet ku shaqeeya. midna waa wifi oo uma baahna wax xarig, waa wireless yani waa xarig la. marka iyagu marka endocrine laga hadlayo waa wireless, waa xarig la, wax yani maxaa la yidhahdaa tuubooyina ama qasabada ah oo jirka iyo xididda ay marayaan ma jirto. si toosa waxaa loogu darayaa dhiigga. dhiigguna marka wuxuu gaarsiinayaa xubintii ay ku socdaan. yani jirku hormoon kasta uu sii daayo target buu leeyahay, yani meel buu socdaa, hadaf buu leeyahay, xubin buu ku wajahan yahay. xubintaa marka uu ku wajahan yahay waxaa geenaya dhiigga. waa inaynu wada ognahay kulligan in dhiiggu yani xubin kasta oo jirkeena ka mid ah ama unug walba inuu dhiiggu gaaro si uu oxygeenta u gaarsiiyo dee aan u noolaan karno, oo unugaas uu yani u noolaan karo. sidaa awgeed si toosa ayay ugu daraan yani dhiigga. waana sababta tusaale ahaan qofku markii uu qabo xanuunkan la yidhahdo macaanka oo kale yani si toosa dhiigga loogu mudaa irbadda maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan insulinta oo kale. insulin marka qofku isku muday si toos dhiigga ugu daraa. iminka waxaan ka jawaabaynaa markaa su-aasha oranaysa bal waa maxay cudurrada ku dhaca endocrine systemka, yani maxaa ka mid ah? sidaan soo sheegnay cudurro aad u fara badan ayaa ku dhaca endocrine systemka, laakiin waxaan ka hadli doonaa kulligood kama yani suuragal maaha inaan midda u qaadano cashara gaara ka dhigna mooye yani kama wada hadli karno cudurrada endocrine system ku wada dhaca, laakiin kuwa ugu caansan ayaan wax ka tilmaami doonaa. haddaba cudurka koowaad aan soo qaadnay waxa weeyaan acromegaly. yani cudurka la yihahdo acromegaly oo ah runtii xaalad aad u dhib badan oo qofka lafihiisii cagaha, lafihii gacmaha iyo wejiguba ay aad uga waaweynaanayaan yani intii caadi ahayd. yani qof lafihiisa wejigu waaweyn yihiin, isagu dadka ka dheer, cagaha hoose aad u waaweyn yihiin, qof dee ballaaran oo dheer oo waaweyn oo waxaa arkaysaa yani mataqaanaa ka duwan dadka kale, hadday noqoto dherarka iyo joogga, hadday noqoto maxaa la yidhahdaa wejigiisu qaabka u samaysan yahay, lafta sanka, maxaa la yidhahdaa lafaha wejiga, dhafoorka. yani waxa sabab u ahna waxa weeyaan in qanjirka la yidhahdo pituitary gland
oo sii daaya yani hormoonka waan soo sharaxnay wax hormoon looga jeedo laakiin hormoonka la yiraahdo growth hormone ama hormoonka koritaanka ama maadada koritaanka ayuu wuxuu u sii deynayaa xaddi ka badan xaddiga caadiga ahaa yani si wuxuu u sii deynayaa zaa'ida taasaa marka waxay sababaysaa qofki inuu ka dheeraado dadka inay lafihiisu ka waaweynaadaan lafaha dadka kale oo caadiga ah marka waa xanuun waa dhibaato tusaale ahaan sawirkan oo kale waxaa arkaysaan yani nin biro ku tukubaya iyo qof dumar oo dhinac socota waxaa arki kartaa farqiga u dhexeeya labada qof yani ninkana aad waxay inay isku da'aad yihiin labadaba dad iska meel dhexada dhalinyara inay yihiin laakiin yani aad buu uga dheer yahay waxaa arki kartaa yani mataqaanaa wejigiisa oo laga yaabo sawirku inuu yar fog yahay laakiin wejigiisu inuu ka bedelan yahay wejiga tusaale ahaan qofta dumarka ay la socoto kale ama dadka kale baa barbar dhigtay tusaale ahaan waxaa arkaysaa gacmihiisu intay dherer la leeyihiin khaasatan yani gacantu intay la eg tahay yani xajmi ahaan aad bay gacantu u weyn tahay gacmihiisu aad bay u weyn yihiin waxaa arkaysaa yani kabaha uu qabo yani cagihiisa ma arki kartid laakiin kabaha waxaa ka tusaale qaadan kartaa kabaha intay la leeyihiin dee cagta ku jirta intay la eg tahay marka yani waxa kaaga daran yani dhibaato badan buu la noolyahay qofkani waa yani kala goyso dhan baa xanuunaya waa tacbaan wuu daalaya ninka waa nin la yaraha lakin ma socon karo waa sababta ku kalifaysa lugaha yani mataqaana inay lugihii isdaba marsan yihiin qaabka xataa isu wada yaalaan xanuun baa ku kalifaya xanuun baa keenay waxaa arkaysa yani inuu ku tukubayo uu ku soconayo biro waxa keenaya marka waa maxay yani waxa weeyaan waa hormoon zaa'id ku noqday jirkaaga maxaa sababay waxaa sababi karaa in yani mataqaanaa bura ka soo baxday tusaale ahaan pituitary waan soo sharaxnay ama qanjirka pituitary-gu wuxuu ku yaallaa maskaxda weliba qaybteeda hoose maskaxda meesha baseka buu ku yaallaa maskaxda pituitary galaanku marka isagaa sii daaya growth hormone oo ah maadada koritaanka marka waa xaalad aad u dhib badan yani shakliga keliya maaha laakiin yani mataqaanaa xanuuno kale oo fara badan buu la noolyahay astaamo kale badan buu qofka warku dhib badan yahay ma si yani qoto dheer usii geli mayna xanuun walba waayo waqti badan bay naga qaadanaysaa laakiin casharadan xigaan waxaan u qaadan doonaa xanuun walba ka hadli doonaa yani astaamihiisa wax lagu garto sida looga hortago qofka sida loo daweeyo yani dadka qabo la nool aan laga daweyn karin sida loola tacaalo waxaas oo dhan ka hadli doonaa acromegaly marka xanuunka la yiraahdo yuu ku dhacaa wuxuu ku dhici karaa qof walba da' walba laakiin inta badan waxaa lagu arkaa dadka 30 ilaa 50 da'dooda u dhaxayso haddii xaaladan ay ku timaado carruurta oo kalena yani magaca inta badan waxa loo isticmaala dadka waaweyn marka xanuunka laga hadlayo yani haddii la qofkaas acromegaly baa lagu sheegay inta badan waa qof weyn waayo looma isticmaalo carruurta oo kale laakiin haddii xaaladan carruurta ku dhacdo waxaa loo yaqaanaa gigantism oo ah yani mataqaanaa eray bixin kale oo loo yaqaano marka acromegaly ay ku dhacdo marka yani qofka xanuunkan qabaa ama xaaladan la nool uu yahay qof weyn waxaa loo isticmaalaa acromegaly markuu yahay ilmo yarna aan qaangaarin ama adigu 20 iyo ka yar meelaha waxaa loo isticmaalaa gigantism cudurrada ku dhaca endocrine system waxaa isaguna kamid ah cudur caan ah oo la yiraahdo cudurka Addison ama Addison's disease mararka qaarkoodna lagu magacaabo adrenal insufficiency oo macnaheedu yahay in yani adrenal glandsku waa kuwan waa qanjiradan weeyaan labadan qanjir oo inna waxaan raanaa kili ku yaallo ama anigu shakhsiyan waxaan u isticmaalaa kili ku yaallo maadaama ay kiliyaha ku yaallaan sida yani maxaa la yidhahdaa aanu isticmaalno beer ku taal oo kale oo ah yani xubin ka mid ah jirka oo samaysa maadada yani kaydisa yani siina deysa maadada baylka la yidhahdo tusaale ahaan marka keli ku yaalladu labadan qanjir ee keliyaha ku yaalla ayaa waxay hoos u dhigaan soo saaristii ay samaynayeen ama samayntii ay samaynayeen hormoonka la yidhahdo cortisol hormoonkan waxaa loo yaqaanaa cortisol hormoonka stresska ama hormoonka diiqadda iyo hormoonka la yidhahdo aldosterone labada hormoon ayaa hoos u dhacaya khaasatan cortisol ayaa hoos u dhacaya waxa sababay waxay noqon karaan tusaale qanjiradan inay xanuunsan yihiin ama waxay noqon karaan in yani jug ku dhacday in dhibaato soo gaartay iyaga physical ah sababtu waxay doontaba aad ku kaliftay inay soo saari kari waayaan intii la doonayo hormoonka cortisol laakiin marba haddii cortisol uu hoos u dhaco oo qanjiradan ay soo saari waayaan intii jirka u baahnaa waxaa loo yaqaanaa cudurka Addison yani cudurka Addison ayaa la yidhahdaa waa cillad yani halisteeda leh runtii
oo ku sababta qofku inuu isku arko tusaale ahaan daal joogto ah, cunto xumo ama teed la'aan waxay dadku yidhahdaan qaarkood, qofka u jecla cunista milixda, yani qofku wuxuu jeclaanayaa cuntada milixda ku badan tahay, iska daldalaya maanta oo dhan. haddana dhan kale marka laga eegana sonkortiisa iyo dhiiguba, sonkorta iyo dhiiguba hoos ay u dhacaa, yani glucose levelkii caadiga ee dhiigu jirtana hoos bay u dhacdaa, dhiiggiisuna hoos buu u dhacaa. Yani yani waa xigmad ilaahay, yani waa mucjiso. sababta waxa weeyaan qofku markuu inta badan cuntada milixda leh cuno, yani biyahay la hartaa milixdu, marka yani dhiigu wuu kacaa, kor buu u kacaa. sidaas ahaan sababta waxa weeyaan waxa badanaya volumekii, yani fluidka ama dareeraha jirka ku jira baa badanaya, kadibna yani mataqaanaa dhiig, yani qofka barashka dhiiggiisu kor buu u kacaa, laakiin qofkan dhiiggiisu hoos buu u dhacaya, yani isagoo xataa milixdii cunaya. wuxuu qofku isku arkaa matag, calool xanuun iyo murqa xanuun. waxaa sidoo kale yani mataqaanaa astaamihiisa ka mid ah yani timaha oo daata iyo astaamo kale oo fara badan. marka saan sheegaba yani hoos uma gelino cudur walba, mid baan uga hadli doonaa haddii ilaahayna gaarsiiyo, laakiin yani mataqaanaa hadda waan dulmarayna yani cudurrada, yani waxaan tusaale ka bixinaynaa cudurrada endocrine systemka ku dhaca iyo astaamaha yani ugu muhiimsan oo qofku garan karo. waxaa kamid ah cudurrada ku dhaca endocrine systemka cudurka la yihahdo Cushing syndrome. waa cudur isaguna kamid ah yani cudurrada endocrine systemka, waana xaalad timaada markay kelikuyaalladu ama adrenal glandsku, waa kuwa hadda ka hadlayna yani kelikuyaalladu ay hormoonka cortisol u soo saaraan si xad dhaaf ah ama xaddi aad uga sarreeya yani intii jirku uu xamili karay. macnaheedu waa maxay? yani Addison markaan ka hadlayna waxaan sheegnay in kelikuyaalladu ay yani hoos u dhigaan wax soo saarkoodii oo hormoonkii cortisol iyo aldosterone uu hoos u dhaco. laakiin halkan markii la joogo waxaa arkaysaa cortisolkii inuu xad dhaaf yahay, marka cagsi wuxuu ku yahay Addison iyo Cushing syndrome labadaba waxay la xiriiraan cillad ku timaada samaynta hormoonka loo yaqaano cortisol. waxaana sameeya hormoonkaas sidaan sheegnay kelikuyaallada, laakiin way iska soo horjeedaan. midna yani si xad dhaaf u samaynaya oo waa Cushing syndrome, midna waa Addison oo yani hoos ayuu mataqaanaa hormoonkii hoos dhac baa ku yimid, yani wax soo saarkii, yani soo saaritaankiisii. marka waxaa kamid ah astaamihiisa tusaale ahaan qofku inuu xalus yeesho, xaluskaa kaa soo dhacaya, waxaa isku arkaysaa caloosha laftigeeda mataqaanaa diilimo fara badan oo iska yani waxaa moodaysaa inaad bisad la dagaalantay, wax aadan garanayn baa ku wada xaganaya, yani waxaad dareemaysaa yani astaamaha aad moodaysa maanta xalay oo dhan lagu xaganayay, laakiin waa astaan kamid ah astaamaha mataqaanaa la yidhaahdo cudurka Cushing syndrome. waxaa ku arkaysaa qofku yani tusaale ahaan inay minjuhu dhuudhuubtaan, tusaale ahaan waxaa arkaysaa gacmihii qofkan yani aad bay gacantiisa u dhuuban tahay, lugahoo kale yani way dhuubanayaan. yani waxaa kaloo arki kartaa yani in qofku wuxuu yeeshaa tuurbu wuxuu ku yeeshaa waxay u yaqaanaan buffalo hum, yani tuur ayuu wuxuu ku yeelanayaa labada garab dhexdooda, yani wuu rogmanaya qofka o dhan. maxaa la yidhaahdaa timaha wuxuu arkaya qofku yani mataqaanaa in timihiisu aad u khafiifeen ama ay daataan. daakasa qofkan yani wadda dhan baa ka dilaacday, sababta waxa weeyaan timihiibaa khafiifay, markaad khafiif noqdana dee madax wuu bambanaananaya. waxaa arkaysaa qofku dhabanadu inay cas yihiin, oo dhaban casaad buu isku arkayaa, sida qof yani dee dhabanada laga garaacayo kale, laakiin sida saxda cidna kaama garaacina waa astaan kamid ah astaamaha cudurka la yihahdo Cushing syndrome. wuxuu isku arkayaa qofku tusaale ahaan nabaro goori kusoo gaaran aadan garanayn, yani qofku si sahlan buu ku dhaawacmaya. kuwana waxa loo yaqaanaa scratch marks, waa diilimaha yani arkaysaa inay ku yaala caloosha tusaale ahaan moodaysa qof mataqaanaa madanayaal dab ah in lagu dhajiyey ama mataqaanaa wax xasaasiyad yani inay ku kacday oo kale, laakiin yani aanu qofku war ka hayn. astaanta kale ayaduna mataqaanaa aad ay caanka ugu yihiin, yani mataqaanaa lagu arko bukaanada Cushing syndrome qaba ama u ah calaamad yani kamid ah calaamadaha ugu caansan ee Cushing syndrome. waxaa kamid ah qofka wejigiisu inuu noqdo sida dayax oo kale, yani wejigan qofkan hadda waa o weeyaan, sida gabadha imika qaangaaraysa oo kale ayuu wejiga u isbedelaya formkiisa, marka wuxuu noqonayaa weji isagoo dhan o ah, oo arkaysan wejigan yani mataqaanaa qaabku u samaysan yahay. astaamaha kale aan sawirka yani ku xusnayn laakiin kamid ah calaamadaha lagu arko yani bukaanada Cushing syndrome la nool, waxaa kamid ah miisaanka qofku inuu kordho. inkastoo yani qofku tusaale ahaan kasoo qaadan karda qof mar hadduu qofkii xalusna yeeshay, tuur yeeshay, dabcan uu iska kordhaya miisaankiisu, laakiin qofku kayd badan
wuxuu yani mataqaanaa fat ama subag badan buu kaydsanaya runtii markuu xanuunkan qabo oo aanu jirku gubi karayn iska saari karin yani marka miisaankiisu marba wuu kordhaa xataa isagoo laga yaabo inuusan cunto badan cunayn waxaa sidoo kale yani iyaduna ah astaan kale inay dumarka ku adag tahay inay uuraystaan yani inay uur qaadaan cudurrada kale ee kamid ah cudurrada endocrineka waxaa kamid ah Hashimoto's disease cudur la yiraahdo waxaana sababa yani isweerar ka dhaca jirka ama autoimmune disease weeyaan oo macnaheedu yahay in difaaci jirku uu weeraro unugyada qanjirka dhuunta yani qanjirka dhuuntu waa qanjirkan weeyaan waa thyroidka ama qanjirka dhuunta Soomaalidu inta badan ay u isticmaalaan yani magac ahaan ayaa waxa ku dhacaya waxa soo weeraraya yani difaaci jirka difaaciisu sida saxda ah inuu weeraro isla unug kamid ah jirkii waa khalad waxa lagu arkaa tusaale ahaan dadka hadda tusaale ahaan markii qof uu kiliyo ka dhaawacmaan kale oo kili loo geliyo dawo waxa la siiyaa hoos u dhigta difaaca jirkiisa waayo jirku uu garanayaa kilida inuusan nahay sida awgeed weeraraya yani uu la dagaalamaa hadaa marka dawada la siin qofka yani difaaca jirkiisa hoos u dhigaysa hadaan la siin waxay u badan tahay kilidii qofku inuusan calfan sababtu waxa weeyaan way dhimanaysaa kilidii jirku ma ogola wax ka baxsan isaga inay yimaadaan laakiin marka qaarkood waxa dhacda isaga inuu isweeraro sida ciidamada oo kale waa arkaysaa yani mataqaanaa ciidan isku hal dowlad ka wada tirsan baa marka qaarkood isku dhaca marka way ka dhex dhacdaa marka caafimaadka la joogana jirkeena oo waxaa arkaysaa yani mataqaanaa in jirkii difaaca jirka uu weerarayo unugyo isla jirkii ka mid ah marka thyroid cellska ama unugyada sameeyo hormoonka thyroid hormone ayaa waxa weeraraya jirkii difaaca taasa marka waxay ku sababtaa yani mataqaanaa inuu qanjirku hawlgab noqdo ama aad u yareeyo wax soo saarkiisii uu soo saari lahaa yani hormoonada la kala yiraahdo T4 iyo T3 in ku filan jirka yani ma soo saari karo sababtoo ah dhaawac baa ku socda waa la weeraraya sida aan sheegnay waxa sababa difaaca jirku inuu weeraro haddii marka ay soo saari kari waayaan unugyadii labada hormoon يعني waxa ka dhasha astaamo iyadana waxa ka soo ifbaxay yani astaamaha sida in qanjirku yani tusaale ahaan uu aad u barro oo arkaysa qofkan kale tusaale ahaan qanjirku uu bararsan yahay kan kale oo arki kartaa tusaale ahaan yani inuu weynaado yani colorkan hadda mataqaanaa light bluegan yani waxa weeyaan asal intaan u ahaa laakiin hadda wuu faaxay marka uu bararaya yani qofkii mataqaanaa caadiya waa kan tusaale ahaan marka qanjirka oo aad u barara ayaa kamid ah yani dhuunta waxa kamid ah miisaanka qofka oo kordha waxa kamid ah qofka oo yani iska dhaxmaysan qofku dhaxmu dareemaya maanta hatta hadii jawigu kulul yahay oo dadka ay caadi yihiin adiga dhaxan gaar ah ku haysata yani waa dhaxmoonaysa bulshada soo jiida waa kan oo maanta dhan waxa isku celinaysa sariirta yani waa kan waana astaan kamid ah runtii astaamaha yani ugu caansan yani qofka la nool Hashimoto's disease ama qofka hypothyroidism uu yani yar yahay wax soo saarka hormoonada thyroidka waxa kamid ah kala goysada iyo murqaha ku xanuuna waxa kamid ah niyad jab qofku inuu yeesho yani mataqaanaa moodkiisu uu bedelan yahay waxa kamid ah indhaha iyo wajiga oo ku barara waxa kamid ah calool istaag yani qofku mataqaanaa in caloosha ay ku adkaato inuu saxaroodo waxa hadduu saxaroodo sida geela iyo xoolaha ariga uu u saaloodo waxa kamid ah tusaale ahaan maqaarku in qofka qalalo sidii inaan weligii kareem marsan ama saliid marsan ama waxba yani qofkii maanta wuxuu isku arkay inuu jirku qalalan yahay oo waa kanaas ku haya waxa kamid ah timaha oo daata waxa kamid ah caado wareer markii dumarka la joogo tusaale ahaan sida indhiga yani caadadu uu aad u badan yahay ama uusan ku imaanayn yani mataqaanaa xilligu ku imaan jiray dumarku ay ku adkaato yani inay ilma qaadaan ama uuraystaan waxbarashada xusuusta iyo fikridda oo qofka ku adkaata ayaa kamid ah astaamaha lagu arko yani dadka la nool Hashimoto's disease yani waxaan ka hadlay waa markaan cudurka la daweyn weeye waa la daweyn karaa way fududahay laakiin yani waa markuu xaaladda la nool yahay wax dawaana aanu helin weeyaan waxa yani kamid ah astaamaha iyaduna garaaca wadnaha oo hoos u dhaca cudur kale isaguna mataqaanaa kamid ah cudurrada endocrine systemka ku dhaca waxa kamid ah cudurka caanka ee la yiraahdo asnaha Graves disease Graves disease waxay baxda caafimaadku yani ku arkaan runtii yani 2 ilaa 3 dadweynaha caalamka yani dadka bukaanada yani waxa lagu arkaa 2 ilaa 3 boqolkiiba ku dhaco saamiga dumarka iyo ragga yani waxay ku qiyaasaan 8 ilaa 1 oo macnaheedu yahay inuu aad ugu badan yahay dumarka yani marka uu qiyaasi 8 dumar ku dhaco ayuu wuxuu ku dhacaa la yiraahdaa wuxuu haleelaa hal nin marka yani يعني وعذر aad ugu fara badan yani dumarka marka la isbarbar dhigo labada jinsi laakiin labadaba uu ku wada dhici karaa
labadaba wuu ku dhici karaa yani si siman buu ugu dhici karaa laakiin dumarka u badan cudurka Hashimoto's disease yani cudurka la yiraahdo yani Graves disease wuxuu yani Hashimoto's disease la wadaagaa inuu isagu yahay cudur ku yimaada isaguna yahay yani cudur ku yimaada difaaca jirka oo weerara yani inuu yahay cudur sida Hashimoto's disease oo kale ay sabab u tahay difaaci jirka oo weeraraya maxaa la yiraahdaa ishaga unugyada thyroidka laakiin wuxuu yani mataqaana in badan cagsi ku yahay isla Hashimoto's marka laga hadlayo yani astaamaha waayo isagu astaamihiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaa ka mid ah indhaha qofka soo baxa yani waa arkaysan qofkan yani tusaale ahaan indhihiisu siday yihiin yani siday yani mataqaana u muuqato calooshii caddeed ee indhaha qofkan yani mataqaana suu qof fiigsan baa dareemaysaa laakiin waa astaan ka mid ah yani astaamaha ugu caansan ee Graves disease waa arkaysaa tusaale ahaan qof awal hore u qabay hadda laga daweeyey يعني qofkan si indho markale usoo baxsanaayeen iminkana yani inuu dee caadi yahay marka indhaha oo soo baxaya kamid ah waxaa kamid ah dibaaxin iyo jarcayn gacmaha iyo faraha ah waxaa kamid ah yani mataqaanaa tusaale qofku inuu isku arko kuleyl fara badan kii hore waxaan kusoo aragnay inuu ahaa يعني qofku inuu dhaxmoonay kan laakiin kuleyl fara badan qofku iska dhididaya waa kan daaqadaha fura hagana kan waxaas maanta yani qofku leeyahay dadkii kale oo mataqaana laga yaabo inaysan yani iyagu kuleyl dareemayn buu qofkani gubanaya walwal iyo xanaaq fara badan oo wax sababay aan la garanayn yani qofku moogta haddii laga xanaajiyo waa la garanaya wax xanaaqa sababay qof kale ka cadhaysiiyey ama haddii tusaale ahaan qofku uu xanaaqsan yahay dee qof baa ka xanaajiyey laakiin ama hadduu walwalsan yahay kale wax laga yaabaa dee dhacdo aan garanayno yani dhacdo tusaale ahaan inay wax la soo darseen yani dareenkan keenay walwalka wata laakiin qofku iska walwalsan yahay lamana garanayo wuxuu walwalsan yahay wax sababay la garan maayo maqaarka oo qoyan kii hore muxuu ahaa maqaarku inuu qalalan yahay kan waxaa moodaysaa qofku inuu iska saliidaysto maanta qofku inuu dhididayaa maqaarkiisina yani mataqaanaa uu qoyan yahay maanta dhan yani maqaarku ku arkaysaa yani mataqaanaa marka physical examination ka samaynaysa oo kale tusaale ahaan qof markuu kugu yimaado dhakhtarka yani marka baaritaan ku samaynaysa jirkiisa eegaysid yani waxaa ku arkaysaa maqaarkiisa inuu qoyan yahay miisaanka bukaanka oo hoos u dhaca ayaa ku arkaysaa qofkan aad buu cuntada u cunaa runtii yani qofka mataqaana Graves disease yani cuntada yani cunto xumo ma hayso cuntadii wuxuu hadduusan ka cunto badnayn dadka kale kama cunto yara yani wax dhibaato kama haysto cuntada inuu qaato laakiin haddana saas oo miisaankiisa hoos u dhacaya waayo metabolism rate-ka yani mataqaana yani jirkiisa aad wuxuu isticmaalayaa cuntada ciyaalka yarka hadda aragtay yani markay korayaan oo kale way ka cunto badan dadka kale waxa laga yaabaa wax badan cunin markiiba laakiin de maanta dhan uu u baahan yahay cunto maadaama ay korayaan laakiin qofkana waa sidaas oo kale yani qofka xanuunkan la nool sidaas oo kale wuxuu isku arkaa yani mataqaana isagoo cuntadii cunaya haddana in miisaankii uu hoos u socdo waxyaalaha kale isku arka waxaa kamid ah qofka oo saxaradiisu aad u badato ilaa 3-4 jeer waa laga yaabaa inuu maalin gudaheed saxarado iyadoo yani aan shuban iyo waxa aanay jirin laakiin haddana saxaradiisu waxay ku socotaa xawaare ka badan xawaari dadka caadiga ah yani calool istaag isagu ma leh kii hore calool istaag buu lahaa Hashimoto's disease qanjirka thyroidka oo faaxa ayaa kamid ah isaguna waa astaamaha ay ka siman yihiin Hashimoto's disease oo aan soo aragnay yani page hore ku soo aragnay goiter baa loo yaqaanaa kan wuu faaxa waliba caan buu yahay waxaa kamid ah tusaale ahaan caado wareer inay dumarku isku arkaan tusaale caado inay ama dhiig inuu si ama inuu yaraado ama inuu bato ama inuu maxaa la yiraahdaa ku iman waayo muddadii caadiga ahaa ay gabadhu isku ogeyd inuu ku yimaado tusaale waxaa kamid ah dareenka galmada oo yaraada marka dumarka jooga khaasatan marka astaamahaas oo dhan waa astaamo lagu garto Graves disease waana soo sheegnay Graves disease waxa weeyaan waxa sababa waa autoimmune disease ama cudur ka yimaada in difaaci jirku uu weeraro maxaa la yiraahdaa unugyadii jirka thyroidka yani waxaan ku dari lahaa yani halkan thyroidku yani xawli buu u sameynaya yani wuu fara badan yahay wuxuu sameeyaa waxa xaalad la yiraahdo hyperthyroidism macnaheedu waxa weeyaan kii hore wuxuu ahaa markaan Hashimoto's disease joognay yani waxa hoos u dhacayay
xaddigii la doonayay in la soo saaro hormoonka thyroidka. laakiin halkan hormoonka thyroidka yani marka Graves' disease la joogo hormoonka thyroidku aad buu u badanaya, wuu fara badan yahay. waana sababta markii dhaawacu gaaro oo jirku uu weeraro yani unugyada thyroidka wuu faaxaya, yani waxaa faaxaya goiter buu noqonaya. Goiter waxa weeyaan waa inuu faaxo qanjirku markuu faaxana yani wax soo saar badan buu sameynaya, yani marna waa toxic nooc ma, yani wuxuu sameynayaa inuu hormoonkii intii jirku qaabili karay ama xamili karay ka badan u soo saaro. waana sababta keenaysa qofku mataqaana inuu cunto fara badan cuno, inuu aad u saxaroodo, inuu gubto, inuu waayo yani hormoonka thyroidka waan ka hadli doonaa, laakiin wax shaqada ugu badan uu jirka ka hayo waxa weeyaan waxa la yiraahdo metabolism ama dheef samaynta yani cidda xakamaysa qofku energy isticmaalaya, kaydintiisa, nidaamka in cuntada isticmaashay yani tamar loo bedelo, waxaas oo dhan waxa yani jirka meel kasta ay tahay thyroidka yani ku shaqo leh. marka maadaama thyroidku shaqadiisu ay ahayd yani xakamaynta iyo la socodka dheef samaynta qofka ama jirkeena, isagina yani uu zaa'id yahay, yani thyroid hormoonku uu zaa'id yahay, waxaa badanaysa marka dheef samayntii iyo metabolismkii ratekii inuu ka bato, yani xawaaro badan inuu ku socdo. sababta waxa weeyaan thyroidka hormoonkii baa dee soo badanaya, markastoo thyroid hormoonkii la sii daayana waxaa badanaya xawaarihii dheef samaynta jirka ka dhacaysay. marka yani qofkan waxaa ku badan hormoonka thyroidka, halka Hashimoto's disease uu ku yaraa maxaa la yihahdaa thyroid hormoonku yani uu yaraa. marka waa laba cudur oo runtii cagsi isku ah, way iska soo horjeedaan, sida astaamaha bay iskaga soo horjeedaan qaybo ka mid ah. cudurka ugu dambeeya isaguna caanka ah ee ka mid ah cudurrada ku dhaca endocrine systemka waxaa ka mid ah diabetes ama cudurka macaanka ama sonkorta sida dadka qaarkood u yaqaanaan, oo runtii ah laba nooc oo kala duwan. inta badanna waxaa sabab u ah yani halkan waxaa arkaysan yani ganacii, tusaale ahaan ganacii ama pancreas, halkan waa caloosheeni weeyaan, halkan waa small intestine qaybta ugu horeysa la yiraahdo duodenum, halkan wax weeyaan waa qanjirka hadda aan ka hadlayna ee thyroidka, sorry yani waxaan ka wadaa pancreas. qanjirka ganaca wuxuu sameeyaa hormoon la yiraahdo insulin iyo hormoon la yiraahdo glucagon, laakiin insulinka ayaa hadda mataqaanaa muhiim ah. sababta waxa weeyaan markii diabetes laga hadlayo yani qanjirkan ayaa waxaa hoos u dhaca samayntii uu sameynayay insulinta. marka waxay noqonaysaa haddii marba aanay insulin jirin, laba loo qaybiya yani waxaa la yiraahdo diabeteska waxaa loo yaqaanaa diabetes type 1 iyo type 2, yani waa kan koowaad iyo kan labaad marka diabeteska laga hadlayo. marka kan yar kan koowaad inta badan yarku ku dhaca, yani ciyaalka yaryar way ku dhashaan inta badan, waxaana sabab u ah yani qanjirkan totally uusan samaynaynba wax la yirahdo insulin, yani hormoonkan insulinka la yirahdo ayaanu samayn karayn qanjirkan ganaca, yani ganaca ayaan samayn karin insulin, sidaa awgeed dee sonkorta la socotay jirka dhiigga lagama soo reebi kara yani. marka qof markuu cunto cuno, cuntadii dee inta badan macaan bay u badan tahay, kadibna dhiigga waxaa ku badanaya sonkortii, oo ana sababta loo leeyahay qofka macaan buu qabaa. waa marka kan laga hadlayo kan koowaad yani type 1 oo diabeteska. marka laga hadlayo type 2ga oo inta badan dadka waaweyn ay la nool yihiin, waa cudur runtii la xiriira lifestyle-ka, yani qofku siduu u nool yahay, hadduusan jimicsi aadin, hadduu qofku mataqaana siduu doona isaga cunteeyo, markuu doono seexdo, markuu doono iska soo tooso, marka yani qofku nolol careless markuu isaga jiro, yani aad bay ugu sahlan tahay inuu diabetes type 2 qaado. tusaale ahaan markuu qofku cayilan yahay oo kale, isaguna halis badan buu ugu jiraa. laakiin cudurka isaga waxaa sabab u ah macnaheedu ma aha in qanjirku aanu samaynayn insulinta. qanjirku insulinta wuu samaynaya, laakiin inta badan unugyadii la rabay insulinta waxay u shaqaysaa sida furaha oo kale. guri markaad soo gelisay waa inaad furaha haysatay markuu gurigu xiran yahay, waa inaad markaa albaabka iska soo furtay oo soo gashay. unugyada jirkeenu si ay sonkorta u qaataan, ileen moogta glucose ama sonkorta waan u baahannahay, jirkeenu u baahan yahay, wuu isticmaala, unugyadu waxay ku nool yihiin, laakiin yani waa qayb ka mid ah yani waxa ay quutaan. siday dux ugu baahan yihiin bay ugu baahan yihiin sonkor, siday protein ugu baahan yihiin bay ugu baahan yihiin sonkor, siday yani ugu baahan yihiin minerals iyo vitamins, vitaminada iyo mineralada sida calciumta oo kale, potassiumta oo kale, ama vitaminada sida vitamin A, D, C, waxaas oo dhan yani sidaan ugu baahannahay ayay sonkorna ugu baahan yihiin unugyada jirkeena. marka
cuntadu markay timaado meeshii unugyadu ay ka qaadan lahaayeen si unugyadu ay u qaataan yani sonkorta oo ay yani u dheefsadaan waxa ku dhacaya waxa loo baahan yahay insulinta waxa sameeya ganaca marka insulinta markuu ganacu sameeyo insulinta way soo tagtaa unugiiba u tagtaa way furtaa marka kaas dhacda sonkorta kala har cuntada waxa dhacda marka type 2 la joogo diabetes type 2 marka la joogo yani insulintii uu ganacu sameeyay markay unugii u tagto ay istiraado unugii fur ama yani u sheeg inuu sonkorta qaato kama ogolaanayo waa amar diido yani insulintu way tagaysaa insulintu waxaan sheegnay inay fura tahay unugii bay u tagaysaa unugii markay u tagto yani waxay doonaysaa inay unugii ku qanciso inuu sonkorta la socota dhiigga inay la haraan laakiin ma aqbali karo yani unugii wuxuu leeyahay insulin wax leeyahay ma aqaan marka unugu kala wad taas marka waxay sababaysaa in sonkortii dhiigga ay ku badato laakiin unugyadii aanay wax sonkor haysan cagsigeena ahayd waxa la rabay inay sonkortu dhiigga ku yaraato laakiin unugyadu ay isticmaalaan kala hari karaan dhiigga yani marka yani midna waxa weeyaan type 2 waa amar diido ka timid unugyada ay diidan yihiin inay insulinta aqbalaan in ay sonkorta kala haraan dhiigga midna waxa weeyaan in insulin aanay jirin ba aslanba oo waa type 1 marka waa cudur kamid ah marka cudurada ku dhacay endocrineka intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo casharkii hordhaca u ahaa endocrine systemka oo aan ka hadli doono haddii lahaydno aan uga hadli doono yani casharo badan cudurada ku dhacay iyo sida loo daweeyo iyo sida looga hortago iyo waxyaabaha marka horeba sababa waana mahadsantihiin waxaan idin leenahay kusoo bira bahdan Somali Med waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.